faa'iidooyinka ay dhirta u leedahay noolaha. Dhirtu waxa ay muhiim u tahay dhammaan koonkan aan ku noolnahay iyo wixii ku dul noolba. Dhirta waxay soo nuugtaa carbon dioxide waxayna sii deysaa oxygen, taasoo muhiim u ah oxygen-kaasoo muhiim u ah noolaha dhulka korkiisa ku nool. daawadayaal kusoo dhawaada muuqaalkan ku saabsan dhirta iyo muhiimadda ay leedahay. Faa'iidooyinka dhirtu ay u leedahay noolaha. Dhirtu waxa ay muhiim u tahay dhammaan waxa ku dul nool dhulka korkiisa. Dhirtu waxa ay soo nuugtaa carbon dioxide oo ah hawo wasakhaysan, waxa ayna sii deysaa hawo oxygen ah taasoo nadiif ah, waxaana u baahan dhammaan noolayaasha dhulka korkiisa ku nool. Dhammaan nooluhu waxay u baahan yihiin dhirta si ay u noolaadaan, maxaa yeelay waxa ay cunaan inta ugu badan waa dhir ama wax dhir soo cunay. Dhirtu waxay caawisaa in aan nadiifino biyaha iyo deegaanka nagu hareeraysan. Muhiimadda dhirta ay u leedahay bani'aadamka ma ahan mid la soo koobi karo. Noloshaan aan noolnahay macquul ma ahaateen ama dhib ay ahaan lahayd inaan noolaano haddii aysan dhir jirin. Muhiimadda ugu weyn ee dhirta bani'aadamka u leedahay waa in cunto ay u tahay bani'aadamka iyo dhammaan noolayaasha dhulka ku noolba. Waxaan cunnaa dhir ama waxaan cunnaa xayawaano dhir soo cunay. Muhiimadda kale ee leedahay dhirtu waa inay jawigan nagu hareeraysan ay maintain gareyso. Waxay soo saartaa oxygen waxayna nuugtaa carbon dioxide marka ay cuntada samaysanayso dhirta. Oxygen-ta ay soo saarto waxay muhiim u tahay dhammaan noolaha dhulka ku nool, ugu badnaan xayawaanada aerobic organisms loo yaqaano ama hawo oxygen-ta ah neefsada. Sidoo kale waxay maintain gareysaa hawadan lagu magacaabo ozone-ta. Ozone waa layer-kan dhulka ka sareeya kaasoo dhulka ka ilaaliya iyo wixii ku noolba inay u soo gudbaan shucaaca dhibi kara bani'aadamka ama dhammaan noolaha dhulka ku nool. Dhirta waxa ay carbon dioxide ka saartaa hawadan aan ku noolnahay, waxayna yareysaa global warming-ga, waxay hoos u dhigtaa global warming-ga. Dhirta waxa ay bani'aadamka siisaa waxyaabo aad muhiim u ah oo ay ka mid tahay dabka. Dabka asal ahaan waxaa laga keenay dhirta. Sidoo kale waxyaabaha muhiimka ah ee dhirta leedahay waxaa ka mid ah in daawooyin ay ka sameystaan bani'aadamka dhirta. Dhirta waxaa lagula dagaalamaa cayayaanka marka laga sameynayo daawooyinka qaarkood sida dyeska, pesticideska. Sidoo kale dhirta waxaan ka helnaa saliidda iyo dhammaan wixii la halmaala. Dhirta waxa ay u abuurtaa bani'aadamka iyo noolaha kaleba hoy. Waxaa laga yaabaa hal geed inuu bixiyo ama uu siiyo cunto iyo hoy noolayaal aad u fara badan sida cayayaanka, shimbiraha, xamaaratada, gooryaamada qaarkood, tixriyaasha oo kale. Waxay siisaa hoy ayay siisaa. Ma noolaan karno dhirta la'aanteeda. Iyadoo saas ay tahay haddana mararka qaar dhirta waxa ay nagu keentaa dhibaatooyin. Dhibaatooyinkaas ay ka mid tahay dhirta waxa ay mararka qaar ka baxdaa meelo aan loo baahnaynin oo dadka aysan u baahnayn, sida inay space naga buuxiso oo kale, ama meelo ubax aan ugu talagalnay inaan ka abuurnay ay ka soo baxaan dhir aan loogu talagalin aan fiicnaynin. Sidoo kale dhirta faa'iido darada ee leedahay waxaa ka mid ah dhirta qaarkood waxay soo saartaa quruurax yaryar oo pollen grains lagu magacaabo, kuwaasoo dadka qaar allergy ku kiciya. Sidoo kale dhirta qaar waxay soo saartaa sun taasoo bani'aadamka waxyeelay karta iyo dhammaan noolaha kaleba. Waxaan halkaas ku soo gabagabeynayaa